halkani oo dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa hadda waxa la soo gaarsiiyay dhaawaca 11 qof oo ku waxyeeloobay roobkii ka daay magaalada Hargeysa iyo sidoo kale 3 qof oo ku geeriyooday roobkii ka daay magaalada Hargeysa hadda warbaahinta halkan kula hadlay taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliya iyo sidoo kale barasaabka gobolka Maroodi Jeex oo ka warbixiyay xaaladaha iyadoo welina ay soo socdaan ama ay warar kala ka bixin doonaan xaaladaha dhimashada iyo dhaawaca uu sababay roobkii ka daay maanta magaalada Hargeysa waa waqtigii xagaag ahayd roob badan uma inaan baran dawladda hoosena way shaqaynaysaa anaguna heegan baanu nahay taliye ciidanka wadinka arka saraakiisha ciidanka oo dhami waa heegan dhammaan qaranka oo dhami heegan buu ugu jiraa marka dhibaato timaado marka wadooyinkana waa laga shaqaynayaa insha Allah ka seexan mayno ilaa inta aan ogaanayno khasaaraha inta ugu dambaysa hadii Ilaahay ka dhigo caawa dhan waanu soo jeedaynaa wadooyinka waanu banaynaynaa waanu ka shaqaynaynaa waa mas'uul abaarashantii waxa magaalada ka daayay abaarashantii galabta roob dabayl leh warbixintan hadda idinsiinana waa warbixin horudhaca hadda waxaynu hor joognaa emergency-gii cusbitaalka guud ee Hargeysa oo aad iyo aad wasaaradda caafimaadkana ugu mahad celinayo dhakhaatiir badan oo gurmadina halkan joogan iyo hadday neersan yihiin qasaara jira naf iyo maalba leh horta waxaan leeyahay intii geeriyootay ilaahay naxariistii jannaha siiyo inta dhaawacantayna ilaahay u saalo markii hore qofaa kooma ku jiray imika laakiin laba kala ku soo kordhay koomadu waa 3 marka waxa weeyaan markii hore waxay ahaayeen 8 iyo 3 11 sida gudoomiyaha gobolka uu sheegay waxa jira qasaare kale oo daara oo jiingada laakiin warbixin hore dhacaan imika idinsiinana marka hadii la yiraahdo soo tiro koobana waanu soo gaarsiin doonaa warbaahinta hadii la yiraahdo waanu mahad celinayaa dadamiska qaranka oo ciidanka booliiska ay meel walba wada galayeen oo taageerada baan ugu mahad celinayaa Axmed Khalid Farax telefishin Gaariyal dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa